kulanti waxaan saaxiibayaal halkan waxaan idinkugu hayaa nambarka gurmadka degdega ah ee Soomaaliya haddii aad xaalad degdeg ah la kulanto si aad ugu yeerato gurmad waa sheeko dhab ah oo badi ka jirta Soomaaliya waana mid u baahan in laga gudbo balse sidee looga gudbaa aan marka hore gudagalno sheekada ee nambarka degdega ah ee aan halkan idinkugu hayo waxay ahayd xilli barqa ah gabar ayaa u socotay suuqa si ay reerkeeda ugu soo adeegto waxaa meel luuqa uga soo baxay nin tuuga oo toorey ama abley watay oo na ku yiri istaag keen lacagta iyo taleefanka gabadhii ayaa qaylo afka labadii dhawaaqday yaa muslima hay yaa muslima qof soo gurmada ma ay helin waana ay u socon weysay sheekadaasi mar kale ayay qaydisay yaa reer hebel ahay afarta gees ayaa waxaa ka soo yaacay rag iyo dumar tuugiina waa la hareereeyay tooreydii ayaa laga qaaday waxaana lagu bilaabay jirdil tuugii wuu xanuunsaday wuxuuna bilaabay habar wacasho isaguna waa markiise yaa reer hebel ahay waaba isla beeshii ay gabadha wacatay yaab iyo amakaag dadkii jirdilayay ayaa sidii ay maanso qabatay mar qura ka joojiyay jirdilkii gabadhii uu isbaarada u dhigtay ayaana tiri ilma adeeryaalow iska daaya waa tolkee nin ka mid ah raggii garaacayay ayaa yidhi waryaa maxaa kuu geeyey gabadha in adeerta ah tuugii ayaa ku jawaabay wallaahi in ay qaraabada tahay ma ogeyn intaas kadib qof kasta danihiisa ayuu raacday oo sheekadii meesha ayay ku dhammaantay dadkiina ku kala tageen halkan waxaad ka dheehan kartaa sida maanta ay Soomaaliya uga jirto qabyaaladda mana ahan wax wanaagsan waxa loo baahan yahay laguna talinayo ayaa ah in laga gudbo qabyaaladda si guud dadka isku gurmadaan deris saaxiib iyo Soomaalinimo sheekadan waxaan qayb ka mid ah ka soo xigtay wariye Ismaaciil Sheekh Khalifa